wakiilka Salman Rushdie ayaa yiri warka ma wanaagsan kadib markii qoraaga lagu tooriyay munaasabad ka dhacday gobolka New York waxa lagu weeraray masraxa oo hadda waxa ku xiran hawmareen mana awoodo inuu hadlo. Andrew Willey ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay isagoo intaas ku daray in qoraaga oo 75 jir ah laga yaabo inuu waayi karo hal il. Mr. Rushdie ayaa sanado badan la kulmay hanjabaado dil ah kadib markii uu qoray buuggii aayadaha shaydaanka oo la daawacay sanadkii 1988. Booliska ayaa xiray nin lagu magacaabo Hadi Matar oo 24 jir ah kana yimid Fairview, New Jersey. Booliska gobolka New York ayaa sheegay in tuhmanuhu uu ku soo orday masraxa oo uu weeraray Mr. Rushdie iyo wariye ku sugnaa goobta. Mr. Rushdie ayaa ugu yaraan hal mar laga tooriyay qoorta iyo caloosha sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Waxaa diyaarad helicopter ah loogu qaaday isbitaal ku yaala area Pennsylvania. Salman waxay u badan tahay inuu waayi doono hal il. Neerfayaasha gacanta ayaa go'ay, beerkiisana waa la dhaawacay. Wakiilkiisa ayaa yiri ilaa iyo hadda ma jiraan wax sabab ah ama dambi ah oo ay boolisku xaqiijiyeen kuwaas oo ku guda jira baaritaano oo lagu baarayo waraaqo ku jira boorso dhabarka lagu xirto iyo aaladaha elektarooniga ah oo laga helay xarunta. Booliska ayaa shir jiraa'id oo ay qabteen ku sheegeen in shaqaalaha iyo dadkii goobta joogay ay ku soo degdegeen ninka weerarka geystay oo ay dhulka dhigeen kadibna la xiray. Dhakhtar ka mid ah dadkii goobta joogay ayaa Mr. Rushdie siiyay gargaar degdeg ah. Wariye Henry Rees oo la socda Mr. Rushdie ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray madaxa waxaana loo qaaday isbitaal maxalli ah. Mr. Rees waa aasaasaha hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo siiso gabayo qorayaasha la masaafuriyay. Linda Abrams oo goobjooga ku ahayd magaalada Buffalo ayaa u sheegtay New York Times in ninkii weerarka geystay uu isku dayay inuu weeraro Mr. Rushdie kadib markii la xakameeyay. Waxay ku qaadatay inay 5 nin ku qabtaan isagoona weli mindiyeynayay ayay tiri Abrams. aad buu u xanaaqsanaa wuuna xoog badnaa. Qoraaga u dhashay Hindiya Mr. Rushdie waxa uu caan ku noqday buuggii Midnight's Children ee 1981 kaas oo in ka badan 1 milyan oo nuqul gudaha UK kaliya lagu iibiyay. laakiin buuggiisii afraad oo la daabacay 1988 aayadaha shaydaanka ayaa ku qasbay inuu isqariyo muddo ku dhow 10 sano. buugga beensheega ah ee casrigan ka dambeeyay waxa uu caro ka dhexdhaliyay qaar ka mid ah muslimiinta kuwaas oo u arkaya waxa ku jira in uu yahay aflagaado loo geystay diinta ama ilaah waxaana laga mamnuucay dalalka qaarkood. dhowr qof ayaa lagu dilay rabshado ka dhan ah Rushdie ee Hindiya iyo Iran sidoo kale waxa dhagax lagu tuuray safaaradda Britain ee caasimadda Tehran. sanadkii 1991 turjubaan u dhashay dalka Japan ayaa toorey lagu dilay. dhowr bilood kadibna sidoo kale waxa mindi lagu dhuftay turjubaan Talyaani ah waxaana la toogtay daabicihii buugga ee u dhashay Norway William Nygard laakiin labaduba way badbaadeen. sanad kadib markii la sii daayay buuggan hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Khomeini ayaa ku baaqay in Mr. Rushdie waxa uu fadwo ku bixiyay $3 milyan oo abaalmarin ah wareegto sharci ah uu soo saaray hogaamiye diimeed Islaami ah. abaalmarinta la duldhigay madaxa Mr. Rushdie ayaa weli ah mid firfircoon inkastoo dowladda Iran ay iska fogeysay go'aanka Khomeini. haddana hay'ad diimeed rasmi ah oo Iran ah ayaa abaalmarintan ku dartay $500,000 sanadkii 2012. ma jiro wax falcelin ah oo dowladda Iran ay ka bixisay tooreynta Mr. Rushdie. warbaahinta Iran ayaa ku sifaysay Mr. Rushdie inuu yahay murtad qof ka tagay ama diiday caqiidadiisa. muwaadinka British Amerikaanka ah oo ay dhaleen dad muslimiin ah oo aan ku dhaqmin isla markaana ah diin laawe ayaa noqday nin aad ugu ololeeya xorriyadda hadalka isagoo dhowr jeer difaacay shaqadiisa. markii Mr. Rushdie ay boqoradda Ingiriiska ku sharaftay buuggiisa aayadaha shaydaanka 2007 waxa ay dhalisay mudaharaadyo ka dhacay Iran iyo Pakistan halkaas oo mid ka mid ah golaha wasiirada uu sheegay in sharaftu ay ku jirto weeraro ismiidaamin ah. dhowr munaasabadood oo suugaaneed oo uu ka soo qayb galay Mr. Rushdie ayaa loo hanjabay kadibna la baajiyay laakiin wuu sii waday qoraaladiisii. buuggiisa xiga ee Victoria City ayaa lagu waday in la daabaco Febraayo 2023. qoraaga Taslima Nasreen oo lagu qasbay inay ka cararto gurigeeda oo ku yaal Bangladesh kadib markii maxkamad ay sheegtay in buuggeeda Laaja uu meel kaga dhacay diinta Islaamka ayaa sheegtay inay hadda u baqday ammaankeeda wixii ka dambeeyay weerarkii Mr. Rushdie.